Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday daawadayaal ku soo dhawaada Nuxur TV oo alaabaha daaga kale idiin soo gudbiya nuxurka wararka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta wada hadallo laba geesood la yeeshay dhigiisa wadanka Shiinaha Xi Jinping madaxtooyada Beijing. Labada madaxweyne ayaa waxay isku afkarteen in kor loo qaado xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal Shiinaha iyo Soomaaliya lana gaarsiiyo heer sareeya iskaashiga istiraatiijiyadeed sidii kor loogu qaadi lahaa. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku adkeeyay siyaasadda labada dal ee ku saleysan taageerada iyo isgarabtaagga dhuleed ee labada dal ay leeyihiin. Dhankiisa madaxweyne Xi Jinping ayaa xusay ballanqaadka Shiinaha ee ku saleysan in la xoojiyo iskaashiga kala dhexeeya dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaa kaloo laga wada horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo amniga iyo cuntada iyo isbeddelka cimilada. Sidoo kale madaxweynaha Xi Jinping ayaa ku dhawaaqay dhaqaale dhan 200 milyan oo yuan oo u dhigma $26 milyan. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu diiday inuu la kulmo Dr. Abiy Ahmed Cali oo doonayay inuu la hadlo, halkaasoo ay dhexdhexaadinayeen labada madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynihii hore ee Nigeria, halkaasoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay inuu yiri taaka ka mid ah dhulka Soomaaliya kama gorgortamayo lana kulmi maayo ninka loo yaqaan Abiy Ahmed. Dhanka kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftigreen ayaa waxa uu la kulmay safiirka Faransiiska u jooga Kenya. Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Xaaji Aadan ayaa ka jawaabay su'aalo la weydiiyay guddiga maaliyadda ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, qirtana inuu la jiray mid ka mid ah shirkado uu ku tartamayay qandaraasyada wasaaradda caafimaadka, taasoo la leeyahay waxay bannaanka u soo saartay walaaca ay qabaan qolada mucaaradka kuna eedeynayeen Xasan Sheekh Maxamuud wasiiradiisa inay yihiin qaar dhinaca ka raran. Saraakiisha booliska ee wadanka Nigeria una jooga nabad ilaalinta Soomaaliya ayaa waxaa 160 ka mid oo askari ayaa abaalmarin la guddoonsiiyay cutubka 12aad. waxay dalka iyo gudihiisa iyo dibaddiisa bay naga soo gaadhay daawadayaal. waa naga inta idinkoo nabada iyo anigoo nabada insha Allah aad iyo aad baan idin salaamaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi